sida uu sheegay wasiirka tamarta ee kheyraadka ee dalka Turkiga. markabka shidaalka ka qodaya Soomaaliya ayaa ku soo wajahan dhawaan xeebaha Soomaaliya kaasoo bilaabaya shidaal qodista Soomaaliya kadib sahmin dheer oo la soo gabagabay oo lagu waday xeebaha Soomaaliya gaar ahaan goobaha loo qorsheeyay in laga soo saaro shidaalka Soomaaliya. wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga Alparslan Bayraktar ayaa shaaciyay in markabka qodista ee Karipay oo 10 Abriil imaan doona Soomaaliya si uu bilaabo howlgalkii ugu horeeyay ee shidaal qodista oo laga fuliyo Soomaaliya. Bayraktar ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad ka dhacday gobolka Trabzon ee waqooyiga Turkiga isagoo xusay in maalmaha soo socda uu safar ku tagi doono Soomaaliya. waxaan maalmo gudahood u socdaalaya Soomaaliya. markabkeena Sakribay wuxuu halkaasi imaanayaa Jimcaha 10 Abriil ayuu yiri. markabkaas ayaa bilaabi doona howlgalkii ugu horeeyay ee qodista shidaal badeed ee Soomaaliya laga sameeyo ayuu hadalkiisa sii raaciyay Masar Bayraktar. wuxuu intaa ku daray in haddii shidaal laga helo goobaha laga qodayo ay taasi wax weyn ku biiri doonto Soomaaliya, Geeska Afrika iyo weliba sidoo kale dalka Turkiga. howlgalka cusub ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee qodista shidaal badeed oo si rasmi ah uga bilowdo Soomaaliya, waxaana uu xambaarsan yahay muhiimad dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeed. wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad ayaa xaddii hore sheegay in haddii mashruucan uu guuleysto uu sare u qaadi karo rajada Soomaaliya ee kobaca dhaqaale ee ku dhisan kheyraadka dabiiciga ah, isla markaana uu xoojin karo doorka Turkiga ee loo arko saaxiib muddo dheer garab taagnaa horumarka dalka Soomaaliya. waa marxalad wax ka bedeli karta aragtida dhaqaale ee Soomaaliya iyo guud ahaan isbeddelka tamarta ee gobolka, ayuu yiri Cali Balcad. Turkiga iyo Soomaaliya ayaa sanadkii 2024 kala saxiixday heshiisyo la xiriira baarista iyo weliba saameynta shidaalka iyo gaaska, kuwaas oo quseeya biriga iyo badda. heshiisyadaasi ayaa qayb ka ah dadaalka Ankara ay ku doonayso inay ku ballaariso ilaa tamarta kuna yareyso ku tiirsanaanta shidaalka dibadda laga keeno. markabka Sakribay ee ka ambabaxay dekedda Tasuque ee gobolka Marsid bishii Febraayo waxaa la filayaa inuu bishan ka bilaabo qodista ceelka loo yaqaano Curaadwan. goobaha shidaalka laga qodayo ayaa hore waxaa sahmin uga sameeyay markabka saameynta ee Urukreis kaasoo baaritaano ka sameeyay 3 xirmo oo badeed oo ka baxsan xeebaha Soomaaliya. markabkaas ayaa Soomaaliya yimid bishii Oktoobar 2024 wuxuuna howshiisii soo gabagabeeyay sanadkii hore. Sakribay ayaa noqonaya markabkii ugu horeeyay ee shidaal qodis ee Turkiga ka howlgala meel ka baxsan xeebaha dalkiisa kadib markabka saameynta ee Urukreis. Turkiga ayaa sanadii ugu dambeeyay xoogga saarayay howlaha qodista tamarta, gaar ahaan goobta gaaska ee badda Madow, halkaasoo dalkaasi uu sanadkii 2020 ka sameeyay helitaankii ugu weynaa ee gaas dabiiciga taariikhdiisa. helitaankaasi ayaa lagu qiyaasay ku dhawaad 720 bilyan oo mitir kiyuubig, kaasoo sidoo kale noqday kii ugu weynaa ee gaas badeed ee dunida laga helo sanadkaasi. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka saameynta xoogan ku leh Soomaaliya xilli wadamo dhowr ah ay ku loolamayaan saameynta istiraatiijiyadeed ee dalka ku yaala marinka muhiimka ah ee isku xira badweynta Hindiya, gacanka Cadmeed iyo marin biyoodka Badda Cas.